kulanti wacan wanaagsan marka le waa Xuseen Maxamed Geedi iyo Facebook watch YouTube watch intaba waad iga fiirsanaysaano mentor Xuseen Geedi ayaa ku soo gali kartaan. Okay, waxaan ahay baraka hadlo ama dadka baro ganacsiga casriga iyo sida loo qabto. haddaba maanta wuxuu ku saabsan yahay cashirkan wuxuu ku saabsan yahay mid la yiraahdo follow up. macaamilkii aad hore ugu bandhigtay ganacsiga ayaa u baahan kuma filno macaamilka inta badan hal mar kaliya kuma qanci karo kumana filna saas awgeed wuxuu qabi karaa su'aalo wuxuu qabi karaa cabsiyo wuxuu u baahnaan karaa xog kale dheeri ah haddaba macaamilkaas wuxuu u baahan yahay oo laga maarmaan ah in dib loo soo celiyo oo kulan kale aad ku balantaan kulankaasna balantiisa waxa la dejiyaa bandhiga markuu dhamaado kulan kale aad markaas ku soo laabataan waxaa muhiimadda la siiyaa baahida uu leeyahay qofka macaamilka ah baahi noocee ah ayuu qofkan leeyahay taasi ayaa ah aasaas ama muhiim ah waxaa la raacaa su'aalaha uu qofka ku weydiinayo ayaa asala marka koowaad asiga ayaa fursad la siiyaa oo waxaa dib loo weydiiyaa bandhiga hore u sameysay waxyaabaha uu ka faa'iiday sidoo kale bandhigaasi waxyaabaha su'aal uu qabo oo jeclaan lahaa inuu ogaado baahidiisa adoo dabagalaya ayaa waxa la tusaa cadeemooyin fara badan oo ku filan inta badan waxa iska caadi ah qofka adeega marka loo bandhigo cabsiyo fara badan ayaa imaanaya oo ku saabsan in adeegan haddii qofkan partner kula shaqeysanayo cabsiyo fara badan oo ah ganacsigani inuu faa'iido u leeyahay iyo sidoo horumar ugu sameyn karo ayaa kamid ah sidoo kale hadduu yahay macaamil caadi ah adeegani sida uu faa'iido ugu leeyahay iyo waxa uu ka heli karo ayaa kamid ah saas awgeed marka koowaad waxaa muhiim ah mar labaad iyo mar saddexaad waxaa muhiim ah qofka in dib loo soo celiyo loogana qanciyo dhammaan su'aalaha uu qabo cadeemo fara badan oo ku filan la tuso lagana amba qaado baahida uu qabo tani inta barnaamijna aan ku kulmay